madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo muuqaal soo dhigay bartiisa Twitter ayaa sheegay in caruurta ay dhaleen dadka sida sharci darada ah ku soo gala Mareykanka aysan heli doonin dhalashada Mareykanka. Sida caadiga ah Mareykanka, haddii waalidka si sharci dara ah ay ku soo galaan oo caruur ay ku dhalaan Mareykanka, caruurtoodii ayaa isla markiiba noqonaya muwaadiniin u dhashay dalkan Mareykanka. Balse qorshaha Trump ayaa ah in caruurta aysan noqon karin muwaadiniin u dhashay Mareykanka haddii waalidkoodii ay yihiin dad si sharci dara ah ku soo galay kuna jooga Mareykanka. Trump ayaa sheegay in maalinta ugu horeysa ee uu xafiiska la wareego uu soo saari doono amar madaxweyne oo lagu joojinayo in muwaadiniin ay noqdaan caruurta ay dhaleen waalidiinta sida sharci darada ah ku soo gala dalkan Mareykanka. As part of my plan to secure the border on day one of my new term in office, I will sign an executive order making clear to federal agencies that under the correct interpretation of the law, going forward, the future children of illegal aliens will not receive automatic U.S. citizenship. wuxuuna intaasi ku daray in ugu yaraan mid ka mid ah waalidiinta uu yahay muwaadin Mareykan ah ama si sharci ah waddanka uu ku joogo si caruurta ay dhalaan isla markiiba ay u noqdaan muwaadiniin u dhashay Mareykanka. At least one parent will have to be a citizen or a legal resident in order to qualify. We will secure our borders and we will restore our sovereignty starting on day one. Trump oo doonaya in mar kale u tartamo madaxtinimada Mareykanka ayaa durba bilaabay ololihiisa ka dhanka ah dadka sida sharci darada ah ku soo gala Mareykanka, waxaana uu sheegay in uu xiri doono xuduudda si cunaha loo qabto dadka sida sharci darada ah ku soo gala dalkan Mareykanka.